iyada ay muran ka dhashay natiijada ciyaartii dhex mareysay gobolada Daadmadheedh iyo Hawd ee semifinalka ahayd ama afardhamaadkii loogu gudbiyay ciyaarta kama dambaysta ayaa murankaasi waxa uu hadeeyay guud ahaan bagagida ciyaaraha ee magaalada Hargeysa isla markaana Dhawacii ayaa ka dhashay khilaafka arintaasi waxa ka hadlay oo warbaahinta la hadlay duqa Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteelko oo uu helinayay Badhasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed labada mas'uul waxa ay sheegeen in ay Dhawacii ka dhasheen isla markaana waxa Ilaahay ugu rajeeyeen in dadkaasi ay bogsadaan iyagoo dhanka kalena ka hadlay go'aano dawladeed oo ay dawladdu ka soo saartay habsami socodka ciyaaraha gobolada dhowrka kulan ee haray hadaba labada mas'uul waa duqa Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteelko iyo Badhasaabka gobolka Maroodijeex oo arintaasi ka hadlaya waxa daladoodii kamid ahaa waxaan leeyahay maanta kabshadii dhacay intii ku dhaawacantay Ilaahay caafimaad ha siiyo ilaa 10 qof dhaawacaya askar badan oo bliiska waxbay gaadheen waxaan leeyahay xamaasadu inayna gaarsiin kubadda uma ku ekaato kuna ahaantii waxaan halkan ka soo jeedin doonaa mar labaad beritoole waxaa la farayaa labada naadi ee ciyaaraya labadooda kooxood oo basaskooga wata oo qura oo taageerayaashu la socon ayaa iman doona muxuu ahaa taliska bliiska halkaas ay taageerayaasha qura iyo madaxda qura gawaadhi ku gali doonta gawaadhida ka tagaysa dhinaca galbeed waxay dhigan doonaan gawaadhida halkii warshada caanaha amba xerada birjeex iyo wixii ka galbeedeeya dhinaca barina gawaadhidu waxay istaagi doonaan goolada xariir wixii ka bariyeeyay istaagi doonaan dhinaca galbeedna waxay istaagi doonaan gawaadhidu oo dhigan doonaan halka warshadii caanaha amba xerada birjeex galbeedkeeda taageerayaashu iyagoo lugeynaya geli doonaan taageerayaasha gobolka Gibiley waxay fadhiisan doonaan taarbuunka galbeed waxay fadhiisan doonaan dhinaca xigta Hawd amba koonfur dhinaca xigta taageerayaasha gobolka Maroodijeexna waxay fadhiisan doonaan VIP da wixii waqooyi ka xiga waxayna marka la baxaya ka bixi doonaan kadinka waqooyi dhinaca taageerayaasha fadhiisanaya dhinaca bari dhinaca koonfureed waxa fadhiisan doona taageerayaasha Gibiley dhinaca waqooyina waxa fadhiisan doona taageerayaasha gobolka Maroodijeex waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidanka booliiska oo runtii hawl aad iyo aad u qiimo badan qabtay maanta oo runtii mudan in loo mahadnaqo iyo ciidamada kale la shaqeynaya asluubta iyo ciidanka badda ma aha inaga oo kubad ciyaarayna inaynu ciidankeennii dhibno oo dhaawac baa ka soo gaadhay ciidanka booliiska dadweynihii dhaawacu ka gaadhay iyo askartii dhaawacu soo gaadhayba ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala u yasiro oo u boogadhago waxaasoo kalena waxaanu dadweynaha ku wacyigelinaa inaanay dubu dhicin berito waxaa wada ciyaaraya gobolka Gibiley iyo gobolka Maroodijeex dhammaan inta ka soo qaybgalaysa iyo taageerayaasha gobolada waxaanu furaynaa inay ilaaliyaan nidaamka iyo anshaxa iyo kala dambeynta in la ixtiraamo ciidamada booliiska oo runtii ilaalinaya nabadgelyada qaranka oo dhan ceeb bay nagu tahay iyadoo ciyaarihii wareegyadii ugu dambeeyay ay marayaan in ay rabshado iyo runtii waxaan loo baahnayn ka dhacaan sidii shalay toba aanu sheegnay waxaanu mar labaad ku celinaynaa inay taageerayaashu ilaaliyaan nidaamka iyo anshaxa waayo ciyaaraha waxaynu u qabanay in dhalinyaradu isku barato in isu dhexgal iyo wanaag iyo runtii uu ka kordho laakiin umaynaan qabanin rabshado iyo runtii ay ka dhacaan wax nabadgelyadana inaga xumeeyaa waxa kaloo aanu faraynaa dadka ka soo qaybgalaya ciyaarta ee daawanaya inay gaadiidka baarkinada soo dhigtaan lama ogola wax gaadiida oo agagaarka garoonka la soo dhigo qof waliba baarkin buu soo dhiganaya gaadhigiisa wuu soo lugaynayaa gaadiidka ay la socdaan labada kooxood iyo gaadiidka madaxda oo wadato ayuunbaa garoonka iman doona dadweynuhu qof waliba baarkin buu gaadhigiisa soo dhiganayaa waxaanu ku celinaynaa mar labaad aynu ilaalino anshaxa iyo wanaag runtii wanaagga aynu u qabanay ciyaaraha inay dhalinyarada u kala korodhaan isbarasho iyo kalgacal